wasiirka cusub ee wasaaradda kheyraadka biyaha ee Somaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa maanta kormeeray xarunta wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera iyadoo ay wehelinayeen mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta qaranka Cawaale Ibrahim Shirwac waxaana warbixin ka siinayay kormeerkaasi marayaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Saleebaan Cabdi Looliye sidoo kale waxa uu wasiirku isla maanta dhagax dhigay mashruuc biyo ballaarin ah oo magaalada Berbera laga wado gaar ahaan xaafadaha dhinaca badda xiga ee loo yaqaan Batalaale waxaana ku weelinayay dhagax dhigaasi mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo maamulka wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera waxaana ugu horeyn ka warbixiyay biyo ballaarintaasi iyo beebka cusub ee la dhigayo goobtaasi marayaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Saleebaan Cabdi Looliye sidoo kale waxa uu sheegay marayuhu inay maalgelinayaan biyo ballaarintaasi dawladda hoose ee degmada Berbera maanta halkan waxaynu taaganahay dhagax dhiga 12 kilomitir iyo 700 oo mitir oo ay degmada Berbera ay fulinayso ay maalgelisay uguna deeqday wakaaladda biyaha Berbera runtii farxad bay noo tahay sharaf bay noo tahay inaanu maanta hawsha muhiimadda aad garan kartaan ee fiditaanka degmada ka qayb qaadanayso maanta Batalaale wad garan kartaa meelaha ugu quruxda badan bay ka mid tahay degmada waxa la dhismi weeyday wax kale maaha waxa weeyaan biyo la'aan la dhismi weeyday beebka waxaanu rajaynaynaa maanta in wax badan oo jira oo baahi badan oo taagan maanta inaynu kaga bixi doonno waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka duqa degmada Berbera iyo xogayaha degmada oo dhamaantood mar walba heegan oo ah shaqo kasta oo socota waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan oo runtii waqtigaanu hawsha bilaabaynay xaaladda dunuufeed aanu ku jirnay na garab istaagay haday mid shidaal noqoto iyo haday mid taageero noqoto runtii isagu dhaqaale badan geliyay wakaaladda biyaha Berbera marka farxad bay noo tahay saacadda wasiir inaad maanta nagala soo qayb gasho adigoo bilawa oo aad Berbera meeshii ugu horeysay kormeer biyood aad ku tagto ay noqoto maanta waxa weeyaan halka aan joogno maanta biyaadda la joogo waxa dareemaysaa kulaylka jira iyadoo waliba jiilaal tahay baahida biyuhu inay biyaaddu keenayso waxa kale oo wax lagu farxaa meeyarku wuxuu yiri wixii aan qabsanana ka macaan wax umad kale inoo keento laakiin waxaan rabaa in halka ugu daro baahidu marka ay jirto marka umadu san wax u qabsato waxa dhib yar in qofka kale ee kula shaqeynayana uu ku dhiirado marka arintan waxay hormood u tahay in dadku waxay karayaan qabsadaan kabacdina ay soo jiitaan ummadaha kale oo si fiican loo iibgeeyo wasiir waxaan halka kaaga sheegayaa in magaaladani ay leedahay ay ka mid tahay magaalooyin kale master plan oo biyaha ah insha Allah de marka ay ku fududaan doonto sidii aad ugu iibgeyn lahayd ama qarashad ugu heli lahayd sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo xogayaha maamulka dawladda hoose iyaguna sheegay inay si weyn uga qayb qaadanayaan sidii ay magaalada Berbera biyo u heli lahayd isla markaana ay sanadkan 2020 ugu dareen miisaaniyadda lacag dhan $150,000 saacadul wasiir mashruucan wuxuu kamid ahaa mashaariicdii 2019 xildhibaanada golaha deegaanku ay ansixiyeen waana mashaariicdii ka yimi xaafadaha ee shanta xaafadood ee magaalada xog ururintii laga soo ururinayay 2018 ee lagu diyaar garoobay 2019 xog ururintii laga soo ururiyay ee biyo ballaarinta iyo baahidooda rasmiga ah weeye waxa maalgelisay dawladda hoose magaalada Berbera waxaana fulinaysa wakaaladda biyaha ee wasaaradda ku xiriirsan obina sacina ala dunya wadiin marka hore ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala marka labaad waxa farxad weyn noo ah in wasiirkii wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta uu kala qayb nagala soo qayb galo qorshihii sanadka 2019 dabayaaqadiisii wasiir miisaaniyadda waxa la sameeyay 2018 bishii 9aad waxaan ugu qorsheynay in magaalada fidinta biyaha inaanay kala hadhin adeegyada asaasiga ah iyo degsimada aanay kala hadhin markaan anagu ognahay aanay wakaaladdu dhaqaale ballaaran lahayn isku halin karin mar walba hay'adaha noo imanaya in qorshaha degmada lagu daro marka lacagtan waxa loo qorsheeyay in magaalada lagu ballaariyo biyaheeda si ay magaalada waxa dhibaato badan naga haysan jirtay waxaan aad ugu faraxsanahay in isbedel aan caadi ahayn ninka dhalinyarada ah ee maarayaha cusub Saleebaan oo iimaankiisa qalbigiisu buuxo uu isbedel ballaaran ku sameeyay
iyadoo wasiirkii ka horeeyayna uu si aan qeyr caadi ugu dadaalay magaalada Salmaan Cali Koore ayaa ilaahay wuxuu nagu galaday in maariyo cusub aan u helno laba shayba reer Berbera maanta way ka baxayaan in koo biyo laga wararo biyo badan magaalada biyo la'aan in ceelasha laga boqo waa ka baxnay labana in beebkii magaalada gudaheeda xumaa iyo kuwii aan beebo oolina beeb cusub loo dhigo oo magaalada biyo joogta 4 saacadood laydhka waxaa ka horeeya biyaha laydhku waa faakahaysi biyuhu laakiin waa daruuri weeye sidaa ogeed wasiir waxaa farxad noo ah in dowladdii hoose degmada Berbera ay dhaqaalaha intaa laga $150,000 ee miisaaniyadda ugu dartay isla aan December ku jirno sanadkii u dhamaanaya iyaanay waliba aanay dowladda hoose fulinayn waxaan ku leenahay inaanu ilaalino hubino xaqiijino sidii loogu talagalay waxaan ma u socdaan maarayaha waxaan ku wareejinay agabkii waxa kale oo ku wareejinayna dhaqaalihii uu ku shaqeynayay ee laga shaqeynayay dhulka lagu gelinayay sidaa ogeed waxa farxad noo ah inuu hanan karo lagu aamini karo wakaaladii biyaha inaan dhaqaalaha inagu aan leenahay dadka laga qaaday shacbiga laga qaaday iyaga shacbiga dib loo geliyo oo waliba wakaaladu inay fuliso way ka dhadhan wanaagsan tahay waana ka fiican tahay dhaqaale dibadda inooga yimaaday hay'adaha caawiya inaynu teenna inagu wax ku qabsano oo cashuurta qofka muwaadinka laga qaaday dib loogu celiyo aad bay u wanaagsan tahay waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryayaa wasiir waxa tahay wasiirada kuwa ugu xogaalka badan dadkan waad u soo talisay barasaab baad soo noqotay sida arrimaha baa soo noqotay baarlamaan baa soo noqotay wax walba waa soo noqotay biyuhuna maanta qaranka lagu dhiibay waxaan aad u rajaynaynaa inaad odhanin Berberi dadku waxay mar walba noqonayaan anagu alxamdulillah baan leenahay mar walba intii Ilaahay nasiiyay alxamdulillah baan leenahay laakiin inaana dadka aan maqal oo Berberi isku filan tahay aan xaqeedana ku waayine aan mar walba sidii wasiirkaaga horeeyay ugu roonaa anaad ugu silabalaad bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore horta Ilaahay baan u mahadnaqaynaa subxaanahu wa ta'aala safarkayga nabadgelyo halkan maanta nagu keenay isla markaana la soo kulmiyay munaasabadan mar labaad runtii waxaan jecelahay xilli kulba la joogay in kelmad halkan ka yiraahdo waxaan horta marka hore u mahad celinaynaa Cabdishakuur maayirka degmada Berbera xogayihiisa iyo gudoomiyaha gobolka runtii xasan shahar baa yiri insha Allah billahi kariim waan anaguna dhaqdhaqaaqi doonaa berigi dhawaatay golayaasha deegaanka waqtiga baad ka dhamaadan lahaa dadkoo dhan waxay lahaayeen Cabdishakuur laga soo reebo moogtahay taasna waxa keenay adeega bulshada iyo wixii loo igmaday buu ka jawaabay runtii aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah billahi kariim Berberi waa wadanka hooyadiisii in ay isbedel weyn ka muuqdana hadda waan aragnaa dhinaca nadaafadda wadooyinka biyaha iyo nalka iyo wax fara badan oo dadka soo jiidanaya maanta ka muuqda aad baan u iman jiray Berbera marka qof kasto yimaada uu garanaya shaqada laga qabtay waana waxa qofka loogu tala galay marka mas'uuliyad la saaro runtii inuu ka jawaabo dhaqaalaha faraha badan li macna ma sameynaya haddaan qorshe jirin runtii waan bogaadinaynaa qorshihiina muuqday maxaan ku raadayay mar dhalay insha Allah billahi kariim waxaan rajaynayaa golaasha deegaanka oo dhan aad u ducayso isla markaana hormuud noqoto isla kulamo far badan u sameeyso si ay tababar badan halkan uga qaataan maadaama waqtigiina la kordhiyay insha Allah billahi kariim faa'iiday waxyaalo fara badan intii aan ku jiray maantana waxaynu joognaa Berbera oo biyo gelintii wadada dawladda hoose kullay maayar Cabdishakuur magaalada Berbera way maayar qaboojiyo horta Berbera Ilaahay u dhaxdhigay haddii magaalada kulushahay Cabdishakuur cidin baa joogo waa kan xilka faraha badan la isa saaray maayar aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waxqabadkaasoo golayaasha deegaanka ee Soomaaliland ee waqtigeeniya ayay tusaale u tahay annaguna magaalo mug weyn baanu joognaayo han iska ceerceerna kolley wax badan waanu qaban doonaa insha Allah ta'ala in badan waxaan la yiraahdaa war meedaan Cabdishakuur arag sidoo caankii wax u qabanaya sidoo wax leeyahay kelmadaas kolley way hor taaganteen maalmo dhow annaguna hadii la yiraahdo waan guntigaan dhiisha iskaga dhigi doonaa halkan waxa jooga maayarkiisa laxlay isaguna oo golihii deegaanka Berbera waa la iskugu yimid Berberna tii hore maanta noqon mayso waa Berbera ka gedisan Cabdishakuur Bareeshiko wadaana waxa weeyaan wuxuu u gogol xaarayaa inay Berberi noqoto magaalada albaabka Soomaaliland laga soo galiyay lagu hiranayo halkan waynu isku wada iman doonaa khayraadkii ugu weynaaba Cabdishakuur dabada ku haya aan cidina hayn marka inta uu dadka dheer yahayna waa biyaha weyn ee daba yaalle insha Allah ta'ala hore u soco intaasaan ku soo ururinayaa awsha qabanaysaana waa hawl taariikhdeeda huwan waa hawl haddii Ilaahay yiraahdo dadkeenii loogu adeegayo waxa weeyaan
xil bayna wada saareen insha Allah ta'ala anaguna qaybteeda waa gudan doonaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii sacaadatu wasiir waxaan noo farxada inaad nala joogto maanta oo aad nala aragto si ay maxaan ku dhahay magaalada Berbera gudaheega uga socdaan biyo ballaarintii oo hadda intaa laga dhawaajiyay dhagax dhigeedii aynu samaynayno horeyna xaafadihii noogu daraa biyaha loo soo geliyey Burcasheekh ama Waraabowtaaga oo xaafadaana weligoodba biyuhu tagi jirin maanta ay biyo leedahay sacaadatu wasiir biyaha halkan warwarka badan naga haysan jiray sanad ka hor aad iyo aad bay dhibaato nooga haysatay laakiin maanta warwar kama qabno populationka kaliya biyahan macbaan ku nool Berbera waxa biyaha ku soo kordho cabaya dhirayn badan oo magaalada ka socoto ilaa 40 kun oo geeda oo ka socoto geed walba hadduu ugu yar yahay foosta cabayo maalintii ayuu cabaya marka 40 kun oo geed oo min hal foosta maalintii cabaya biyahoodu ma yaraanayaan intaa waxa dheer dhammaanba marsadan oo ay xoolihii oo dhan ka baxayaan oo iyaguna biyaha ay cabayaan iyo isticmaalkooda aad garan karto cabsidii naga qabtay maanta ma jirto alxamdulillah biyo fiican baa la haystaa beebabkii dayactirkoodii baa loo dhaqaaqay hadda arrintaasina waxay ku timi maareynta iyo maamulka wasaaradda ka soo bilow ilaa maareeyuhu sidaa la wada sheegay baan aniguna raacayaa waxaanu nahay runtii system isku wada xidhan dhammaantayo hadday maamul maxaan ku dhahday maamulka gobolka oo dhan ilaa maareeyaha tala kasta oo horumar oo bulshada ah waa mid aan ka wada tashanno isku wada garab taaganahay qof kasta ay dhinaciisa hawsha uu qabanayo oo u yeedho oo maamulkiisa kale u yeedho oo ka tala weydiiyo oo si isku mid loo baxo cidda ku caawinaysa ama wax ku siinaysa waxay arkaysaa qaabka aad u shaqaysanayso qof shaqaysanayuun baa la garab galaa maareeyaha qaabka u maamulay hawsha markii la arkay waxay suuro gelisay inay dawladda hoosena dhiirato oo ay aragto dadkii baahiyaha biyaha qabay inay maanta maxaan ku dhahay ka daboolmayaan beebabka hore jira marra biyaana sugaynay maantana biyaha lasoo maxaan ku dhahay magaalada ku soo socda ayaanu dhahnaa si dhigay ku soo socda balyareeya waxaanu ka baqaynaa xoogga ay leeyihiin inay qasabadihiiba wada qarxiyaan inta aynu helayno waxaan warbar kolba in aynu awoodno halaynoo soo istaaro maanta biyo kama baqayno alxamdulillah bulshada reer Berbera biyo way saasay ku helaysaa sidaa la sheegayna uu noo dadaalay wasiirkii hore ka hore mashruuca hore ee ballaarinta ninkii keenay buu ahaa ee soo dabagalay sidaad marar hore badan ba dhageysateen wuxuu yidhi gobollo kale ayaa la geynayay weliba gobolkayga geel la yidhi oo buu yidhi markaasaan yidhi halka hooyada dalka ha la geeyaan yidhi taana aad baan ugu mahadcelinaa sidaa uu noogu dadaalay adna sacaadatu wasiir waanu kugu soo dhawaynaynaa gobolka iyo degmada iyo dhulka aqoon badan baa u leedahay sidaasaanu sii taakiidinaynaa goobo badanoo gobolka maxaan ku dhahdaayay yaro oo manihiina way jiraan halkaan inaad maxaan ku dhahay gacantaada iyo hoos aad u wada eegtana waanu doonaynaa aad iyo aad baan kuu salaamayna waxaan kugu soo dhawaynaa microfonka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu marka tala la helaa wax qabad la helaa runtii warasaabka meeyarka maareeyaha xoghayaha ragga halkan joogay iskugu yimid isku duubni waxaan u arkaa inay isku duubni iyo wada shaqayn wax ku qabteen haddii aan wada shaqayni jirin wax alla wax la qaban karaa ma jirto wax fulayaana ma jiraan aad iyo aad baan idinku boorinayaa idinkaa ka wada markhaat kacay oo sheegay in hawshaa inay wada jir u gasheen haddii sidaa iskugu duubnaataan Berbera waxna waa tarteen waxa dambana waa tari doontaan waa u dhammaystiri doontaan sidaan qabo waa ku mahadsantihiin kulaylka aynu joogno waa December cadceedda dhididku inaga da'ayo marka ay July iyo August joogtana maxaad u malaynaysaa Berbero xilligaasoo kala biyo beesha taa ka dagaalamaysaan ee ogsoontihiin waa taa ay qorshayaasha u samaysanaysaan bacad baynu joognaa hadalka waxba ku dheeraan maayo waxaan leeyahay waa idin bogaadinaynaa waxaan leeyahay guulaysta hawsha wada jirkaa wada kolley master balaanka wasiirkii hore qorshayntu sheegayna waanu arki doonaa waanu muxuu isla eegi doonaa aad iyo aad baad u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullahi maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV magaalada